دكتور رباق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هرقيسا waxaan maanta doonaya inaan idin la wadaago message dheer uu ii soo qoray inaan la yidhaaho Mustafa. Wuxuu idhi berigan yarayn anigii walaalkay Axmed waan tartami jirnay. Wax kasta waan ku tartami jirnay. Waxaan ku tartami jirnay laabta hooyaday qofka ku seexanay ama hooyaday qofka laabta ka galaya. Waxaan ku tartami jirnay cuntada qofka hooyaday afka ugu ridayso. Waxaan ku tartami jirnay jacaylka aabahay iyo ammaantiisa. waxaan ku tartami jirnay ciyaar la ciyaarayo qofka ku guuleysanaya iyo cuntada inta ugu macaan qofka cunaya. waxaan ku tartami jirnay dharka ugu quruxda badan qofka gashanaya. hadhowtana markaan in yar weynaanay waxaan bilaabnay inaan ku tartamno darajadaha ugu sareeya iskuulka qofka helaya, qofka ugu shacbiyada badan iskuulka ee ugu asxaabta badan, qofkii macallimiintu jecel yihiin ay ammaanaan. haddana anagu intaa tartan ku jirnaa waxaan ahayn laba qof oo aad isu jecel. haddana maqlo walaalkiin qof iskuulka ula dagaalamayo sidii qof waalan ban ordi jiray aan dadka ula dagaalami jiray, man ogolayn qof inuu walaalkay uu waxyeelo ama uu ka xanaajiyo. walaalkay wuxuu ahaa qofka sirtayda haya ee aan ku kalsoonaan jiray. wuxuu ii ahaa garab, wuxuu ahaa awoodayda iyo xoogga nolosha aan ku soconayo. wuxuu ii ahaa la taliyahayga. wuxuu ahaa qofka qura ee kari kara inuu iga qosliyo si daacad aan u qosli jiray markan la joogo. laakiin markan weynaanay waan isbedelnay. waa nasiib darro. waxaana kala fogeysay nolol iyo dhaxal iyo adduun iyo lacag. markuu aabahay dhintay ee dhaxalkii la kala qaybiyay ayaan aniga iyo walaalkay isku qabsanay. dhul iyo meherado iyo lacag la qaybinayay. aniga iyo walaalkay muddo 5 sanadooda man wada hadal. waxay gaadhay heer caruurahayagu inaanay wada hadlin. laakiin wiig ka hor walaalkay shir gaadhi ayuu ku dhintay. aad iyo aad baan uga naxay dhimashadiisa. sababtu waxa weeyaan anagoo colaad iyo xumaan iyo karaahiyo naga dhaxayso ayuu iga dhintay walaalkay. waan ka qoomamaynaya maanta daqiiqad kasta iyo saacad kasto ku luntay xumaan iyo karaahiyad. baxan jeclaan lahaa maanta inaan waqtiga dib u soo celiyo oo walaalkay aan saaxiib noqono sidoo isu jeclayn aan isku noqono. dhimashada walaalkay waxa ila mid tahay maanta dhabar jab. markan message-kan akhriyay runtii message-kaas aad bay ii taabatay. isla markaa waxa niyadeyda ku soo dhacday waa maxay macnuhu walaaltinimadu. iyo waxa ku soo dhacay niyadeyda walaaltinimadu sidii qaali u tahay ay waajib inugu tahay inaan wax kasta nolosha uga tanaasalno daraadda walaaltinimadaas inay jirto. koobaad niyadeyda ku soo dhacday waxa weeyaan anigii walaalkay aan wada noolaano ama aan wada dhimanno. la'aanta walaalkay waraabaha ay cunaaya xataa haddaan ahay libaax. la'aanta walaalkay waxaan la mid ahay qof dagaal tegay bilaa hub iyo bilaa ciidan. berigii nebiga maxamed sallallahu alayhi wasallam cumar bin al-khattab wuxuu la walaal ahaa nin la odhan jiray zayd bin al-khattab. isagii walaalkii aad bay isu jeclaayeen. dagaalkii uxud ayaa waxa dhacay. zayd wuxuu la dagaalamayay gaalada isagoo aanan gashanayn gaashaanka dagaalka. cumar markuu arkay walaalkiiyo bilaa gaashaankii dagaalka ku dagaalamayo oo naftiisu khatar ay ku jirto ayaa intuu qayliyay ayaa wuxuu yidhi zayd walaalkay qaado gaashaankayga. wuxuu ugu jawaabay uu ku idhi cumar ma ogid inaan doonayo shahaadada oo maanta in ilaahay dartiisa aan ku dhinto dagaalkan. cumar wuxuu sameeyay gaashaankii uu gashana intuu saaray oo dhulka ku tuuray ayuu dagaalamay barbarka walaalkii isagoo seefka sida bilaa gaashaan laabtiisa ka ilaalinaya, seefta iyo waranka ka ilaalinaya, sidii inuu afka ka leeyahay anigii walaalkeen ama aan wada noolaano ama aan wada dhimanno. dhowr sanadood ka bacdi ayaa dagaaladii islaamka laga noqday ee xuruub ridda la idhaaho ayuu ku dhintay zayd bin al-khattab. cumar markuu ogaaday dhimashada walaalkii aad bay u taabato ay dhaawacday. wuxuu odhan jiray mar kasta wallaahi lan ansaaka maa habbat riixu saba. wallaahi weligii kuma ilaawayo mar kastay dabayl wacan ay timaado aan ku xasuusanaya. qodobka labaad ee walaaltinimada ku saabsan niyadeyda ku soo dhacday waxa weeyaan kaalinta walaalka cid galaysaa ma jirto ama walaalkii kaalintiisa cid buuxinaysaa ma jirto. haddaan walaalkii aan waayo waxay la mid tahay nabar aan laga bogsanayn iyo jab weligii soo kabmanaynin. الحجاج بن يوسف الثقفي أيام بريبا وححري صدح نبو حري مركزا قبر با وتميدو أويس وحكوتر إيسو صار صدح دنن وهدلن بدنوا ولالكي بدنوا ننكيجي بدنوا إنانكيجي.
الحجاج بن يوسف الثقفي intuu gabadhiisa uu eegay wuxuu ku yiri saddexda mid ka dooro mid ban ku soo deynayaa labada kalena waan dilayaa gabadhiba inta in yar fakartay horatan waxay ugu jawaabtay ku tiri walaalka ii soo saar wuxuu ku yiri waa maxay sababteed walaalka ku dooratay waxay tiri zawjku wuu joogaa oo nin kale waan guursan karaa inankana waa la dhali karaa oo inan kale waan helayaa laakiin walaalka hadduu tago ama uu dhinto walaal kale maanta ma helayo walaalka kaalintiisa cid buuxinaysa ma jirto mana dareemi karo taas ilaa qof walaalkii waayay qodobka saddexaad ku soo dhacday niyadeyda ee walaaltinimada ku saabsan waxa weeyaan qofka ugu wacan ee hamigaaga iyo hadafkaaga nolosha kula wadaagi kara ee hadafkaas kula dhisi kara waxa weeyaan walaal wacan oo ku fahmaya waxaan tusaale idin soo qaadayaa nabi Muuse iyo nabi Haaruun maalintu nabi Muuse uu nabi uu noqday waxa ugu horeeyay ka fakiray wuxuu ahaa walaalkii Haaruun inuu walaalkii Haaruun sharaftaas uu helo oo sidiisoo kale uu nabi uu noqdo taariikhdu waxay sheegaysaa buubaagtu inaanu jirin qof abaal walaalkii kule sidoo Haaruun nabi Haaruun uu walaalkii abaal ku leeyay sababtu waxa weeyaan ducadu ducaynayay Muuse oo Ilaahay uu bariyay ayuu Ilaahay walaalkii Haaruun uu nabi ka dhigay Ilaahay quraanka wuxuu ku yiri bismillaahir rahmaanir rahiim ij'al li waziran min ahli Haaruun akhi ushdid bihi azri وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم لبدا ولال نبي هارون يا نبي موسى لبدا ودبا وإسلامي استرجرين نبي موسى وحوها قفك أدق يقوانك قادنايا يقواناديس أي أدقتي إن بني إسرائيل أي كبق جرتي هارون وحوها قفك نحريس تبضن ددكو كسو أرورو جرين هذا الكدبعسان أورنجري مركا لبدو إسلامي استرجرين نبي هارون ولالكي نبي موسى وحوها ولال وعن ينبي تاجيرايا يقف عاونايا أو تلصينايا يوحك استنك عاون جري haddaad leedahay hadaf weyn nolosha qofka ugu wacan ee kula wadaagi kara waa walaal wacan qodobka ugu dambeeyay walaaltinimada ku saabsan niyadeeda ku soo dhacay waxa weeyaan walaalkay waa ka qacantayda haynaya haddii cid walba ay cidla iga tagto qofka ugu dambeeyay dhaqaaqaya waa walaalkay maalinta cid walba ay dhaqaaqdo waxa jiri jiray bari dal kamida dalalka tuulo waxa jiri jiray dad ku nool dadkaasoo ceel bibiya ka soo dhaaminsan jireen ceelka markay wadaanta ay ku tuuraan ayaa hortan waxay arki jireen wadaantii oo go'day oo xadhigii keligii ay soo jiidi jireen ka bacdi waxay go'aansadeen qof in ceelka ku tuuraan ay eegaan sababtii wadaantu u go'ayso inaan dhalinyaro abo wuxuu yidhi aniga igu rid aan soo eego sababtu waxay tahay laakiin shardigayga waxa weeyaan walaalkay inuu hayo xadhigan ay ugu xuraysaan hadhowta igu soo jiidaysaan way ka yaabeen sababtu arrinka u dalbaday laakiin marka ceelkii lagu tuuray uu ceelkii uu galay ayaa wuxuu arkay daayeer inuu ceelka ku jiro oo daayeerkaas wadaanta uu goynay markasta intuu daayeerkii soo qaaday ayuu wadaantiiba ku riday markaasuu ku yidhi soo jiida xadhiga markii xadhigii la soo jiiday ay daayeerkii arkeen ayaa shaydaan bay moodeen way naxeen xadhigii bay sii daayeen way ordeen laakiin qofka quri ordi waayay ee xadhigii hayay ee ka baqayay walaalkii inuu dhaco ama xadhigu la go'o wuxuu ahaa inankii ku jiray ceelka walaalkii ba hartana soo jiiday xadhigii oo walaalkii ceelka ka soo saaray markaasuu dadkii wuxuu ku yiri soo maydin garan sababtan idinku qasbay inuu walaalkii xadhiga u hayo sababtu waxa weeyaan waxaan ogahay qof kasta hadduu iga tago walaalkii inaanu cidla igaga dhaqaaqayn haddaa xadhigaana sii daysaan qofka ugu dambeeya xadhiga sii daynaya inuu yahay walaalkay haddaba gabagabadii waxaan idin odhanayaa mustafana waxaan odhanayaa walaalkay waa igu qaali dhiig ban wada wadaagna walaalkay wuu ka qaalisan yahay dhul la isku qabsanaayo iyo dhaxal iyo lacag iyo adduun walaalkii uu ka qaalisan yahay inaan kala duwanaano oo kala dabiicad gaara mid walba uu yeesho walaalkii adduunka iyo duruufahaba uu ka qaalisan yahay aan walaalaheena jeclaano oo u naxariisno oo aan caawinno oo barbar istaagno oo wax kasta aan kari karno aan u hodno hadday talo noqoto ama adduun ay noqoto haddii walaalkay dalbado xidig anigu dayaxan u soo qabanaya waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.